الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن داود يال كسر دواء برنامج كيني دبك هذا برنامج كدبك هذا القيب تم وحنا دير ربي قدرك جهاد لدونا أو أن أجي دونا مجال ذا دوسمر رب يورك يقدم بيجي هالكاسين نجسو قاري شراركي استبتشوجها ملاحظة الصومالية وجسر المجال ذا دوسمر رب حرمت الدولة جولات كجل مدوب أيه ولي هالقاضي كسر صعدة وحنا لفيلا يا مغرب كان عوا إن لصاصار والمرتيد la xiriira kulamadii istabajooga ay madaxdu halkaas ku yeelanayeen waxaan eegi doonaa qodobada muhiimka ah ee laga yaabo inay shirkaasi ku ay aan raahdo war saxaafadeedkaasi ay ku qoran yihiin iyo waliba sidoo kale waxyaabaha ilaa iyo hadda sida xogta aan ku helayno madaxdu ay isla gaadheen iyo waxyaabaha ay isku diideen ayaynu eegi doonaa waxa ila jooga falanqeeyo sare jaamac gallad oo aad uga barateen barnaamijkeena dhabka hadal inuu inoogu soo gudbiyo dhabta markaasi jirta ee aanu barnaamijka ku soo qaadano jaamac soo dhawow dhuusamareeb maxaa u dambeeyay niyahow dhuusamareeb oo isdhex fadhidaa hadda isma dhex socotee shalay isdhex socotay maanta shalay isdhex socotay ha maanta isdhex fadhidaa haye wayna iskala saari laadahay ilaa iyo hadda haye kulley annagu khayr badan baan ka rajaynaynaa khayr badan yaan ka rajaynaynaa laakiin ma ilfiicna inkastoo la yidhi siday waxaa la yidhi oo ilaadahay uma allala-a oo aan rajaynayno in ilaahay il khayr qabtay iyo albaab wanaagsanba laga yaabo inuu u furo haddana markii aad fiiriso sida maaragtay wax u socdaan iyo habdhaqanka mas-uuliyiinta meesha jooga iyo sida aysan maaragtay dantii guud ee la wada lahaa ee ummadda ka dhexaysay aysan u danaynaynin ee nin waliba uu tiisa gaarka ah uu maaragtay dagaalamayo haa waxaa kuu soo baxaysa meeshaas xoogaa rajo la-aan iyo maaragtay niyad jab baa ka soo baxaya halkaa haddana markaad fiiriso shucuurta dadka Soomaaliyeed iyo sida wadaniyadii aysan u dhimanin ee weli ay ruuxdii dadku u nooshahay ayna diyaar ugu yihiin inay dalkooda iyo dadkooda maaragtay badbaadsadaan waxaa kuu soo baxaysa haddana rajo wanaagsan oo ah dadkan in uun maaragtay haddii loo baahdo lagu khasbi karo inay fuliyaan rabitaanka bulshada inteeda badan sidoo kalena ay maaragtay hirgeliyaan danaha guud ee shacabku uu wada leeyahay marka waxyaalaha hadda ka socda dhuusamareeb waa waxyaalo maaragtay dhinacna ay ka muuqanayso runtii niyad jab dhinacna ay ka muuqanayso rajo iyo yididiilo wanaagsan oo markaad fiiriso rabitaanka dadkan meesha jooga ee mas-uuliyiinta ah ee maxaanku idhahdaato maanta iyagu hormuudka isaga dhigaya taladii ummadda Soomaaliyeed markaad fiiriso runtii waad ka niyad jabaysaa habdhaqankooda iyo rabitaankooda iyo dareenkooda iyo noocooda maaragtay sii liidashada khasunaasnimada aanay wax ay xeerinayaan iyo wax ay maaragtay maxaanku idhahdaato dan ka leeyihiin uusan jirin markaad fiiriso waad rajo dhigaysaa haddana markaad fiiriso shacabka Soomaaliyeed dareenkooda iyo sida ay maxaanku idhahdaato mar walba ugu taagan yihiin danta guud iyo niyadoodu sida ay u adag tahay oo hogaankooda oo xun xitaa maaragtay aysan ugu haleynaynin talada dalkooda iyo dadkooda taasina dhinacaasna waa dhinaca rajada iyo yididiilada maaragtay ay ka muuqanayso sidaa daraadeed dhuusamareeb waxaa isgarab socda labadaasi waxyaalood oo dhinacna waa dhinaca mas-uuliyiinta kasoo yeedhaysa oo markii maaragtay lagaaga sheekeeyo ama aad xogtooda hesho waad ka niyad jabaysaa haddana dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo sida ay ugu darban yihiin hirgelinta danta guud iyo maxaanku idhahdaato ka dhabaynta dowladnimada Soomaaliya hirgelinteeda waa rajo aad u sarreysa oo wanaagsan weeyaan marka muhiimadda waxay tahay in haddii dhib kaste ama si kaste oo maaragtay loogu fashilmo shirkaasi meesha la yidhaahdo dhuusamareeb in uusan qaranka Soomaaliyeed u xagal daacaynin 5 nin iyo 6 nin iyo 7 nin iyo koox meel isugu tagtay oo danahooda ka shirtay ama maxaan ku idhahdaa dantii guud dantooda gaarka ka doorbiday inuuna u xagal daacaynin qaranka Soomaaliyeed dadkii lahaa ee awal hore dhistay ee dhidbay ee u dhimanayay ee u taagnaa ee dhiig iyo dhaqaalaha u hurahay ay weli joogaan inkasta oo xogaa ishu ka laalaado marka dhuusamareeb waxyaalahaas adigu hadda ka jira dadku intooda badan waxa weeye si kasta oo xaggan maaragtay qoladan madaxda ah looga rajo dhigo rajadu way wanaagsan tahay calaa ay tixaal rajadu way wanaagsan tahay waxaan rajaynayaa in maxaan ku idhahdaa takhasab ay ku noqoto qoladan wax la isla ogol yahay inay galabta ama maqribnimada caawa ah ay soo saaraan Soomaali garan kaasina in uu maaragtay sii dhali doono wax hadda meesha ka dhashay wax ka wanaagsan rajadu tamaanta oo kaliya ma rajadu waa tabari iyo saa dambe iyo saakuun
waxaa la sheegayaa in communique lasoo saari doono ilaa maqribkii inkastoo marka hadda barnaamijka aan duubayni iyo marka aynu bulshada la wadaagayna laga yaabo inay kala duwan yihiin oo hadda xilligan aan duubayno maqribka hortiisii laakiin maqribka dabadiisa waxaa lagu wadaa haa marka xilliyadan maqribka waxaa lagu wadaa inuu soo baxo communiquega maxaa laga yaabaa inuu qoray horta communiquega waxyaalaha laga maaragtay soo saarayo wax hadda saa usii buuran ma aha oo waa wax aynu wada ognahay waa 5 qodob 6 qodob baa lasoo saarayaa sida naloo xaqiijiyey oo maxaan ku idhahdaa miiska saaran oo intoodii badneed waa la isku afgartay waxyaalaha la isku afgartay ee communiquegaasi ka soo baxaya waxaa kow ka ah kow horta waxyaalihii laga wada hadlay ee doodii ugu adkayd ee la isku mari waayey oo maaragtay haddana si farsan loo dhigay waxa ugu badan ee shirka lagaga wada hadlay ee shirku uu u jiitamay ee dhanna uu shirku ugu dhici waayey waa doorasho qof iyo cod ah ha la qabto iyo doorasho maxaan ku dhahaa dadban ha la qabto communiquega marka waxaa ku qoran oo sida aan rajeynayna lasoo saari doono in dalka ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay oo waqtigeeda ku dhacda marka ma aqaana maxaafad walba miyaa mise qabiil walba doorasho isagu suu raba ha usoo qabsada miyaa taa un baan u maleeyay anigu mogta ila wuxuu 4.5 baahayd mogta 4.5 hadda dastuurku ay ansixiyeen xeerarka ay ansixiyeen baarlamaanku waa doorasho qof iyo coda oo haddana maaragtay 4.5 ku dhisan tiibaad moodaa haddana yar in lasii dhelan rogay oo la yidhi doorasho loo dhan yahay doorasho loo dhan yahay oo waqtigeeda ku dhacda muxuu yahay macnaheedu doorasho loo dhan dee waa qabiil walba suu raba ha u qabsado muhiimaddu waa intaa un baan u gartay aniga fahankayga waxa weeye waxaan ka hadlahay iyagu laakiin ujeedada keliyihiin iyaga laakiin anigu markaan fiiriyey ereyga la ii sheegay saacad dhan baan qoslahay waxaa lagu yidhi waxyaalaha aan ka hadli doono oo lasoo saaraya waxaa ka mid ahi doorasho loo dhan yahay oo waqtigeeda ku dhacda adugu marka af u bixi ani markaan fiiriyey waxay uun ii noqotay reer walba suu raba inuu qabsado dowlad goboleed walba suu raba soo doorto maya dowlad goboleedka reer badan baa ku meegsan soo maha qoladii rabta qof iyo cod bay u qabsan qoladii rabtana si dadban bay u qabsan qoladii rabtana si qalloocan bay u qabsan qoladii rabtana si toosan bay u qabsan doorasho loo dhan yahay oo waqtigeeda ku dhacdaa la yidhi mogta muhiimadda waa in loo dhannaado doorashada oo ayna jirin qolo ka baaqata dalka waa inay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay oo waqtigeeda ku dhacda adigu meelgee waa noocee marka doorashada loo dhan yahay dee waa doorasho loo dhan yahay un iyagiiba mayna sheegin noocay tahay maxaana ii weydiin riya ilaaha yaqaana soona iyagu sheegaan ma ahayn ayagii may sheegin iyagu waxay yidhaahdeen oo waxa soo baxaya ka mid a ee hadda qoran doorasho loo dhan yahay oo maxaan ku idhahda waqtigeeda ku dhacdo waa qof iyo codna lama dhihin way dad ban tahayna lama dhihin laakiin xaafad walba ama reer walba suu rabo u qabsanaya waa aniga aragtidayda waa aniga aragtidayda ma sidaa xogta aan ku helayna ee rasmiga ah ee la filayo communiquega inagu soo foolle oo daqiiqada kadib waqtiga inoo saamixi waaye inaan sugno daqiiqada kadib soo bixi doona hadduuse ilaahay maaha dhihin oon laguba sii kala boodin ereyada ku qoran waxaa ka mid a doorasho loo dhan yahay oo waqtigeeda ku dhacda doorashadaas ama marka haddana guddi baa la saarayaa baa la yidhi guddigaasi waa guddi heer federaal iyo heer dowlad goboleed ka kooban waa guddi farsamo ama waa technical waa guddi loo dhan yahay oo farsamo isna wax walba loo dhan yahay baa lagu qabanayaa soomaadan garan guddigaasi loo dhan yahay waxay ka soo shaqaynayaan oo soo dejinayaan oo ay soo maaragtay turxaan bixinayaan nooca doorasho ee haddana dalka ka dhici kartaa la yidhi ma qof iyo codba ma doorasho dadbanba ma doorasho loo dhan yahayba ma tu aan loo dhammaynba guddigaasi marka waxay isku soo waafaqaan waxay hor keenayaan baa la yidhi muddo 15 casho oo ugu horeyn 15 casho ah oo ugu dambaysna 30 casho gudahooda shirka dhuusamareeb 3 ka dhici doona warma isfahanay hadda guddigaasi iyaguna waxay ku qornaan doonaan communiquega lasoo wado soomaadan garan waxaa kale oo communiquega ka mid a yacni in wada shaqayn ta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah la joogteeyo oo hadda wixii ka dambeeya ay wada shaqayn toosa iyo mid dadbanba ay yeeshaan oo maxaan ku idhahdaa to labada dhinac ay wada shaqeeyaan waxyaalo fara badan oo marka kale oo iyagana un la isku marin baa jiray oo tiro badan oo qolo waliba ay dhinaceeda maaragtay ay u jiidanaysay laakiin hadda muhiimadda waxay tahay yaynaa heshiinin haddana yaynaa isdagaalin
ina iskhilaafin xoogaa culays bay dareemeen marka waxa dadka aan kusii jeedino inaga qora wey si aynu uga tagno meesha ago muhiimadda laga raaca moogta hadday meesha ka tagaanna shirkii Jabuuti kama duwanaanayo shirka Dhuusamareeb shirkii Jabuuti ee Somaliland iyo Soomaaliya 15 casho maalin in la kulmaa qorshuhu ahaa moogta Muuse Bixi guddigii uu magacaabay Jabuuti uu diray xamar baa maba ogin bay dhahan shirkaas shirkii Jabuuti Soomaaliya soo dhamaanin bay dhahan qolada xamar heshiiskii warmurtiyeedkii la soo saarayna 15 casho inay shiraan guddi hoosaadyada guddiyada farsamo ee hoose heer guddi ah 45 cashana ay shiraan guddi heer wasiir ah yaa 6 biloodna ay shiraan madaxda ama 3 biloodba ugu badnaan sadii marka xamar baa la waday yaa xamar hadda shirkiiba meesha warqadiiba meesha kaga soo tagtay Soomaa iyo wixii lagu heshiiyay iyo wixiiba miiskiiba kaga yimaadeen way marka kaas karo kana noqon ha qolan nabad iyo nolol ma taqaanaa waxa ay sheegaan meesha ay ku sheegaan lama dhaafo sidoo waxay sheegaan oo dhan inta badan 99% markaad fiiriso heshiisyada ay galeen iyo maamulada wixii ay la galeen iyo wali yani qola aan ka cabanaynin ma jirto waka qolada Soomaaliland markii ay laga joogay 15 bari baa inay guddiga hoose ee guddiga farsamo ee guddi hoosaadyada heer farsamo guddi hoosaadyada farsamo ee maaragtay ka doodida qodobada maaragtay aan muhiim ka ahayn inay 15 bari mar kulmaan bay ahayd waxay qoladaas 15 bari ay maaragtay ka soo doodaan ay isla gartaan guddiga heer wasiir oo 45 casho mar kulmaya yay u gudbinayeen waa sida hadda ay ku qorreeyay heshiiska ahayd qalinka ku wada duwan oo qaar baa waxay leeyihiin ninka jaamici nabad nolol mucaarad ku yahay ma ku ihi waxa jira baan sheegnaa mooyaane annagu cidna ma taageero cidna ma mucaaradno haddaan cid taageerayno ama aan cid mucaaradayno cidna ka qarsan mayno waan sheegi lahayn soo garan laakiin inta badan waa laga yaabaa xoogaa marmar inaan wax ku qolo ku yar qaloocanno run baa fiican moogtahay oo dee bini aadanku ma aha macsuum ma aha oo marmar intii aad wax kaa khaldamaan laakiin cid aan si toos ah u taageero oo aan maxaan ku garabka saarayno ma jirto ilaahay baa nala xisaabtamayo oo dhinaca anaga dhulka baale ma ogtahay oo ninna dambi ka gali qof Soomaaliya siyaasadda uu dambi uga gali maayo midna maxaan ku dhahdaa ku noqon maayo cadow laakiin aragtida markaad hadlayso sida aad wax u sheegayso ayayna dadku jeclaysanaynin qaarna way jeclaysanayaan qaarna way nacbaysanayaan marka dadku ha ka yaabin ha garu laba ninka wada qosliso marka muhiimadda waxay tahay nabad iyo nolol markaan hadda ka hadlayno xaqiiqdan sheegaynaa shirkii Jabuuti 15 cashaba inay kulmaan guddi hoosaadka maxaan ku dhahdaa labada dhinac baa qorshuhu ahaa qodobada ay isla turxaan bixiyaanna inay u gudbiyaan maxaan ku dhahdaa guddiga heer wasiir ee labada dawladood Somaliland iyo Soomaaliya guddigaasi wasiiradu waxay isla gaaraan shirka ama 3 bilood ama 6 bilood mar qabsoomayo ee heer maartay madaxtooyo iyaguna inay u sii gudbiyaan geed socodkiisu noocaas u ahaa filla Soomaaliya halkii ugu dambeysay way aan Dhuusamareeb markuu soo noqon adigu xaalku shirka Dhuusamareeb muhiimadiisu waa gabagab ha shirka Dhuusamareeb sida qorsho marka shir la isugu yimaado oo khudbado laga jeediyo horta warmurtiyeedkan marka la soo saaro waxa ku xigi doona sida rajadu ay tahay wali lama hubo oo xubno badan oo wasiir ah oo aan la hadlayno oo waliba waqti dheer uu nagu qaatay iyaga la hadalkooda ka war maaragtay ka wardoonkooda ay naftirkooda waxba quman ku sheegeen kii ugu macquulsanaa wuxuu yiri niyo markuu warmurtiyeedku soo baxo in uu shir bilowdo oo shirkii maartay khudbadihii uu caawa bilowdo oo mas'uuliyiintu ay khudbada jeediyaan bari subaxina lagu kala yaaco yey u dhowdahay waxaan saaman weydiin waxa ku yiri sidii shirkii Jabuuti armo idin ka noqdaa oo ma kan uu ka yar culus yahay aad baad ma marka muhiimadda waxa weeye shirkaasi waa shir si weyn horta loo wada dhowrahayo waa shir aad u miisaan culus waa shir aad iyo aad ay indhaha shacabka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadba ay hayaan waa shir mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed ee mustaqbalka dhow lagu jaangooynayo not mustaqbalka fog 4 sano ee soo socota mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed qaabkii loo hogaamin lahaa iyo siyaasadii lagu hogaamin lahaa ayaa meesha looga doodayaa shirkan marka culayska ugu badan ee saaran waxa weeyaan waa indhaha shacabka Soomaaliyeed ururada bulshada rayidka wax garadkii salaadiintii ugaasadii odayaashii dhaqanka intii oo dhan way wada dhowrayaan ma aaminsani horta anigu si fudud inuu maartay ku fashilmayo laakiin waxa hubaala wax ay heshiis ku yihiin nimankan inaysan jirin sideedaba diyaarna ay u yihiin qaarkood waliba madaxweyne Farmaajo uu diyaar u yahay inuu dib ugu soo noqonin Dhuusamareeb
sababtoo ah way kadeedeen say farqiyada u haysteen wax walbana isagaa mas-uulka ah haddii marka xaggaa tagana eeg laba daran mid dooraa haysata madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo haddii uu yidhaahdo doorasho dadban baan wax ka qabanaya isagu shaksi ahaan wuu ka tanaasulay doorashada qof iyo codka ahay laakiin rag baa ku dhegan isaga lafta lagu sii dhegan yahay ha oo le car oo maxay ragaas ya waa baarlamaankii iyo rag saaxiibada la taliyayaal buu leeyahay soo maaha la taliyayaashii baa god ku ridaya la taliye aan isaga u danaynaynin dadka soomaaliyeedna aan u danaynaynin oo raba inay dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo farmaajoba god iskula dhacaan yaa maxaan ku idhahdaa to kolba soo waca hayoon telefonka dhigaynin oo dhihi haddii aad sidan yeesho halkaas ugu badan inuu ka imanayo taliyaha nadsugida keligii maaha keligii maaha keligii maaha waa been haddii lu yihahdo waa keligii wuu noqon karaa laakiin xubno baarlamaan iyo shaksiyaad caadiya oo adigu hadda aadan u malaysanaynin yaa dhibka ugu badan ku haya madaxweynaha shaksiyaad caadiya hadda oon waxayla dowladda u haynin oo maxaan ku dhahay isaga aan la taliyo ugu magacawnayn intay soo wacan ba waxay leeyahay haddaad yeesho nin rageed xiniyo leh oo waxaa la rabay go-aan qaata oo ama god ku dhaca ama ummadda soomaaliyeed godkaa kala baxa nin walba maantoo kale ma shaqeeya dee nin ka tegey baa maantoo kala shaqeeya oo maxaanku idhaahdaa to haa go-aan qaata sooma garan dhibka ugu badan marka madaxweynaha haysta markii hadda wax uu dhahaba balaayo unbaa soo wici waxaa kale unbaa loogu rogi markaasaa la dhihi maya haddaad saas yeesho adaa is yaqaana halkaas iscasilin baa la dhihi ba intaad saa yeeli lahayd iscasil wallahi nin baa wuxuu igu yidhi afcadda waxaa lagu yidhi buu yidhi haddii aad dhahdo doorasho qof iyo codad dalka kama dhici karta ee tadadban baan idinku raacay haddaad dhahdo barta aad joogto isku casil halkaa aad joogto isku casil sababtoo saacaddaas siyaasad kuugu dambeynaysa bow unbu waxaa kale unbuu bodo maya shuruud baa iigu xidhan buu yidhi haddana tii hore hadaayta waa laga kor hadlahaye tii oo hadda shuruud ku xidhan baan wata marka madaxweyne waa la kadeeday way kadeedeen ha nafti alla lahayd baa haysa xaggii xaggaba ha qoladana waa in loo soo fadhiya mesha waxay anagu doorashada dan baan rabnaa ha oo meel kaleba ma socdaanba wax kaleba ma yaqaanaanba soo ma garan isagiina marka qoladan cid la soo hadlaysa male iyagu way go-aan bay gaadheen way sii tashadeen waxaa weeye waa rag sii tashaday weye tala habeennimo meel dhigtay weeye marka iyaga markuu soo warwareegay xagga mare 12 qolo la soo hadashay isagoo dhakafaarsan uu yimaado meeshii uu kaga tegay shalay unbay joogaan meel lama socdaan ha marka madaxweynihii way kadeedeen Soomaali nin xil u qabtayna waa la hubaa oo waa la hayaa mar inuu dhagaha faraha gelin sababtoo ah ummad wada qayleyso oo wada wax doon oo wada kursi doon oo haddana intooda badan waxay doonayaan iyo waxay diidayaan aan la kala garanaynin weeyaan oo si fiican aan u cadeysanaynin ala ayati xaal shirkan waxaan ka rajeynaynaa guul iyo bashbash iyo barwaaqo kullee hadda guuli kama soo socoto laakiin waxaan rajeynaynaa waxa isaga ka dambeyn doona inuu isagu dhali doono shir quman oo mustaqbalka maaragtay ay ka soo baxaan yeynu rajeynaynaa ummadda Soomaaliyeedna kullee khaladaadku waa dhici karaa oo shar iyo khayr bashirka way ka soo bixi karaan annagu ma doonayno shirkan inuu fashilmo ma doonayno shirkan inuu noqdo shir maaragtay qalooc iyo qolo gaara wax u danaynaya ay ka soo baxaan wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan u danaynaya inay ka soo baxaan yaa muhiim inoo ah marka aad iyo aad baan idin wada salaamaya dhamaantiinba aad baa mahadsantahay jaamaco waayahay daawadayaal halka aan ku joojina barnaamijkaasi kooban ee aan kaga hadlaynay shirka Dhuusamareeb iyo xogihii ugu dambeeyay